kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa warsan news waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida ee caalamka qaybtan waxaynu ku eegi doonaa Netanyahu oo mar kale qadiyada Somaliland horgeyn doona Trump kulan la qaban qaabinayo xogihii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay wada hadallo toos ah oo Trump iyo Netanyahu ay yeelan doonaan macluumaad la xiriira ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa wax kale oo aan qaybtan ku eegi doonaa Masar oo dowladdu ciidan sameysay iyo ciidankii ay u soo diri lahayd gudaha Soomaaliya oo toos imikan loo soo bandhigay wararkii ugu dambeysay dhaqdhaqaaqyada ay Masar ku doonayso in gudaha Soomaaliya ciidan ku keento ayaan halkan idinku soo baahin doonaa wax kale oo aan qaybtan ku eegi doonaa macluumaadka ka cusub iyo xogaha soo kordhay saacadii ugu dambeysay ee ku aadan wada hadallada villa Soomaaliya iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo kulamo saacadii ugu dambeysay Muqdisho ay martigelisay ayaynu halkan idinku soo baahin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal dhamaantiina haddii aad nagu cusubtiina ku soo biira barta YouTube channelka aad naga daawanaysaan Warsan News si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada aynu hadii jeer halkan aynu ku soo baahin noqon daawadaha ugu horeeya ee la xogaha iyo macluumaadka aynu halkan ku soo baahinayno hagaagkan ku bilaabo رئيس الوزراء يهودا نتنياهو ayaa mar kale qadiyada Somaliland horgeyn doono madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump laba bilood gudahooda waxa uu noqonayaa kulankii labaad oo folkafool ah u yeelan doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump iyo sidoo kale madaxweynaha waa ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu waxaana kulamadan looga hadli doonaa xaaladda siyaasadeed ee bariga dhexe iyo arrimo la xiriira nabadeynta iyo golaha nabadda ee Mareykanka uu dhisay ee gudoodka xooggan ay ka muujisay Israel wada hadalladan ayaana toos uga qabsoomi doona dalka Mareykanka waxaana ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu la qorsheynaya in dhawaan uu ka safro Tel Aviv macluumaad soo kordhay ayaa sheegaya in arinta la xiriirta qadiyada Somaliland uu mar kale doonayo in Trump uu kala hadlo Netanyahu warar macluumaad soo kordhay ayaa sheegaya in Netanyahu kulankii hore ee uu la yeeshay Trump uu ku fashilmay inuu kala hadlo arintan iyadoo uu guud ahaan albaabada ka soo xirtay ka hadlida qadiyada Somaliland Donald J. Trump waxa imikan la qorsheenaya in Netanyahu mar kale uu qadiyadan hordhigo Trump isagoo oo ka dhigaya dooqa labaad ee ka hadlida arrimaha la xiriira dhinaca danaha ay wadaagaan labada dhinac ee Mareykanka iyo Israel Netanyahu ayaa doonaya inuu ku qanciyo Trump inuu aqoonsado Somaliland hase ahaatee Trump dhowr jeer oo hore oo fagaarayaal uu ka hadlay sidoo kale qoraallo ay Mareykanka soo saareen waxay ku cadeeyeen inay ka rab taagan yihiin midnimada Soomaaliya balse Trump waxa uu ka gaabsanayaa arrimaha la xiriira qadiyada Somaliland ee la xiriira in ictiraaf uu siiyo oo ay baadigoob dunidu ugu jirtay 34 sano ee weedaartay Israel ayaa noqotay dawladii ugu horeysay oo aan aqoonsi ka haysan dunida oo aqoonsata Somaliland waxayna raadinaysaa wadamo kale oo dhabaheeda soo raaca waxaana ay bilowday in xulafada ay Israel ku xiran tahay toos ugu gudbiso fariinta la xiriirta in dhabaha ay qaaday loo soo qaado loona rumeeyo waxay ugu yeertay riyada shacbiga deegaanada Somaliland oo ay si toos ah ay u ballan qaaday Israel inay kala shaqeynayso madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaan loogeyn sida uu arintan ku maareen doono waxaase jirta oo macluumaad soo kordhay ay sheegayaan in la qorsheeyay ajandaha kulankan looga hadlayo waxaase laga reebay ka hadlida arintan balse Netanyahu ayaa doonaya in marka ay arintan soo dhamaato ee wada hadallada ajandaha ku xusan uu doonayo in si sheeka ahaan uu kaga gado qadiyada Somaliland isagoo horgeyn doona xiriirka tooska ah imikan u bilowday Israel iyo Somaliland natiijada faa'iidada miradhalka ah iyo sida Mareykanka uu kala shaqeyn doono sidii uu ku sii nagaan lahaa deegaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliya Mareykanka ayaana walaac xooggan ka qaba hadii talaabada ee arinta aqoonsiga Somaliland uu qaado inay suurtagal tahay inay ka dhignaan doonto in guud ahaan uu lumiyo mid ka mid ah fursadaha marinada istiraatiijiga u ah ee uu ku leeyahay gudaha Soomaaliya dowladda Mareykanka ayaa rumaysan in Somaliland oo ay la macaamisha aysan ku heli karin marin istiraatiiji ah balse ay doonayso in dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya ay u xigsato waxay rumaysan yihiin in Somaliland aysan awood dhinaca maamulka iyo diidmada midna aysan lahayn oo wax kasta ay ka fulayaan dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya tusaale Mareykanka heshiis ayuu ku joogaa saldhigyada military uu ku leeyahay dhinaca gobolada waqooyina dowladda federaalka ayuu kala xaajoodo toos ah maamulkaas oo dhinaca Somaliland ka jirana waa uu kala macaamilay oo si toos ah maadaama deegaanadooda laga hirgelinayo fursadaha ay Mareykanka u aragto inay ku difaacayso danaheeda
markan haddii aynu eegnana Masar ayaa soo bandhigtay ciidankii ugu tirada badnaa oo ay doonayso inay usoo dirto gudaha Soomaaliya. Dowladda Masar ayaa si toos ah u baahisay muuqaallo muujinaya dhoolatus military oo ay shaaca kaga qaadayso inay u diyaar garowday Masar inay ciidamadii ay ugu talagashay inay geyso Soomaaliya ay si toos ah u diyaariyaan. Ciidankan oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan, gaar ahaan hubka casriga ah ee dunida imika ay isticmaasho. Sidoo kale waxaa ciidankan loo diyaariyay gaadiidka dabaabaadka dagaalka, diyaaradaha nooca casriga ah oo ay soo saartay dowladda Turkiga iyo kuwa Pakistan ay kasoo iibsatay Masar, iyo kuwa kale oo ay Masar kasoo iibsatay Ruushka iyo Mareykanka. Dhammaan diyaaradahan iyo gaadiidka dagaal iyo ciidankan oo qaabka casriga ah ee u tababaran ayaa qorshe u yahay inay qayb ka noqdaan howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee loogu magac daray nabad ilaalinta, kaas oo ilaa imikan wax budget ama dhaqaale aan loo haynin. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan la horgeeyay ciidankan isagoo uu goobjoog ka noqday fagaaro ay ku sameeyeen dhoolatus xoogan oo ay ku soo bandhigeen nooca tababar ay ciidankan haystaan iyo qaabka ay u howlgalayaan. Madaxweynaha dalka Masar Cabdifataah al-Siisi ayaa ballan qaaday inuu sii laba jibaari doono dadaaladiisa ku qotoma inuu taageerada lixaadka leh uu u muujiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ballanqaadyadii hore ay sameysay Masar imikan waxaa ka go'an in ay qaab ficil ah ay u bedesho, ayaa laga soo xigtay xubin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ama wasaaradda difaaca dowladda Masar. Waxaa goobjoog ka ahaa fagaarahan xubnaha ugu sareeya saraakiisha ciidamada militariga, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, wasiirka arrimaha dibadda oo dhammaantooda goobjoog u ahaa munaasabadan lagu soo bandhigayay ciidankan, una muuqatay inay ahayd fariin cad oo ay dirayaan. Dhaqdhaqaaqa Masar ay bilowday waxaa la rumaysan yahay inuu caro xoogan oo siyaasadeed oo dhinaca diblomaasiyadda uu ku abuurayo dowladda Itoobiya oo xurguf ay kala dhaxayso marka la eego Masar ayna isku hayaan marinka iyo xireenka Niil. Macluumaadka iyo wararka laga helayo dhoolatuskaasi ayaa sidoo kale banaanka keenaya in Masar ay diyaar u tahay difaaca madax banaanida Soomaaliya oo imikan Soomaaliya ay la daalaa dhacayso faragelino shisheeye oo caalami ah. Dowladuna ay ku dadaalayso inay xakameyso arrimahaasi. Dowladda Masar ayaa dalbatay in saldhigyo military oo istiraatiiji ah laga siiyo qaybo ka mid ah dhulka deegaanada maamulka Jubbaland, gaar ahaan dhinaca gobolka Gado oo kaabiga ku haya xadka dhinaca Itoobiya. Itoobiya waxay u aragtaa arrintan khatar weyn oo dhinaca ammaankeeda ah oo iyadu saameyn xoogan ku leh. Marka la eegana, Itoobiya ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii guud ahaan looga baaqsan lahaa keenista ciidamada Masar gudaha Soomaaliya, waxaana siyaasad ahaan way isdiidan yihiin, laga cabsi qabaa in isku dhacyo toos ah labada dowladood uu dhex maro. Waxaana si gaar ah loo xusayaa in ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolka Gado iyana ay isku baahinayaan amaba ay isku fidinayaan goobo la sii cayimay inay degi doonaan ama fariisin ay ka sameysan doonaan ciidamada Masaarida ah ee la keenayo gudaha Soomaaliya. Si kastaba ahaatee, dowladda Masar ayaa ka mid ah dowladaha saaxiibka dhowlaha dowladda federaalka Soomaaliya. Heshiis dhinaca difaaca ayayna la gashay markii ay taagneed xiisadii ka dhalatay heshiiskii MOU-ga oo ay wada saxiixdeen Muuse Biixi iyo Abiy Axmed. Waxaana dowladda Masar la xusuustaa in door muuqda oo aan marnaba la dafiri karin ay ka qaadatay arrimaha la xiriira qadiyadda ee Soomaaliya ay ku difaacday. Waxaana macluumaadka iyo wararka kale ee la helayo ay shaaca ka qaadayaan in Masar ay u diyaar garoobayso laba qodob oo midkood uu yahay difaaca dhinaca nabadgelyada ee Soomaaliya iyo in ay iska ilaaliso duulaan ama weerar kaga imaan kara dhinaca Itoobiya oo cabsi xoogan ay ka muujinayaan. Markan haddii aynu eegno macluumaadkeena kale ee aan halkan idinku baahinay hordhicina, wararkii ugu dambeeyay ee shirka tooska ah ee u dhaxeeya Villa Soomaaliya iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka waxa uu qorshe u yahay in maalinta beri oo Khamiis ah shirkan uu si rasmi ah u furmo, waxaana uu isugu imaanaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay helinayaan xubno ka mid ah madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo ay hogaaminayaan Dani Axmed Madoobe iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Kulamadan waxaa looga hadli doonaa xaaladda siyaasadeed ee cakiran
ismariwaaga ka taagan arrimaha dastuurka doorashooyinka oo dhammaan lagu gorfeyn doono wadahadalladan. Axmed Madoobe iyo Deni ayaa shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kuwaas oo si toos ah u xaqiijiyay ka qaybgalkooda shirkan oo ay Muqdisho u yimaadeen. Dhinacyadan Soomaaliyeed ayaa la rumaysan yahay inay isku soo jiidayaan xubnaha wakiilada beesha caalamka oo doonaya in natiijo wax ku ool ah ay ka soo baxdo. dhaqdhaqaaqyo iyo kulamo isdaba joog ah ayaa saacadihii ugu dambeysay Muqdisho ka qabsoomay, waxaana mashquul baahsan laga dareemayaa guryaha ay degan yihiin Deni, Axmed Madoobe iyo Sheekh Shariif oo kulamo isdaba joog ah ay ka soconayaan. Saacad kasta iyo daqiiqad kasta waxaa la warinayaa in xubnahan ay la kulmayaan xubno ay u arkaan inay ka tala qaadanayaan ama aragti ay ku biirinayaan si shirka maalinta beriya ay la tagaan. waxaa sidoo kale mashquul baahsan laga dareemay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo isagana kulamadan qayb ka ah oo si toos ah uga wada Villa Soomaaliya wada tashiyo la xiriira waxa ay ka yeeli doonaan shuruudaha iyo qodobada ay wataan dhinaca mucaaradka. waad ku mahadsantihiin la gunaanadka muuqaalkan haddii aad la soo gaarteen saaxiibadeeda qiimaha badan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.